أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام الحمد لله. ومقال عصب مع العصب. السلام يا أصحابتا. وانسود وينيا وحنسود وينيا ما أنت أنا وكعسيو من قنالك بيرها تي في. بعد ما سنتين كالنتي كلي بوحي أنا كران كي قاعد يقوي ديسان إن idinka oo dadka bulshada aan u gudbiyo diyaar baan u ah mar walba oo soo dhaweynaya taas hordhac ugu baxo oon fogeynin maanta waxaan rabaa kalmado yar oo kooban inaan ka dhahno wax la yiraahdo mirta af Soomaali lagu dhaho ama seedka luqadaha kala lagu yiraahdo marka mir iyo seedba hal eray isku tahay oo ah waxa iniinta la beerto marka iniinta la beerto dhanka beeraha marka aan ka hadlayno dadka hadii aan xasuusiyo faa'iido weyn u leedahay wadanka ama wadan walba oo dunida ka jira ama bini'aadanka inta ugu badan wax la sheego waa quudka wax la yiraahdo waa lagama tartamo walow ay ku sii xigaan xataa daawadii iyo wax soo saarkii kale wixii la xiriiray waxa dhan markaas u fiiris beeraha sahay kale isku yimaado waa lagama dhamaado lagu soo laabtaa iidan u dambeysho taas dadku guud waxaan ka hadli rabnaa waa seedka ama mirta ama iniinta qolba sida u taqaan marka iniinta faa'iidada ay leedahay waxa kamid ah hadii ay tayo leedahay in wax soo saarkan uu tayo yeelanayo hor u kacayo hormarayo heer u gaarayo ku darsamaayo markasto iniintaada ay hooseyso waa markasto wax soo saarkaada iyo quality-gaada iyo tayadaada ay hooseyso dhibaato badan ay saameynteeda ay kugu leedahay markasto oo seedkaada oo haayahay oo quality-giisa fiican yahay ama tayadiisa aan ka dhahno ay fiican tahay markasto adigana aad horumarka u dhawdaa boqolkiiba dhawaanaysid seed marka maxay tahay muhiimad u leeyahay seed wuxuu muhiim u yahay wadan walba oo jiro sida muhiim u ah wadamada hadda wax laga soo dhoofsado ama hormaro seedka quality-ga leh ee tayada leh ee ayaga ugu tala galanoo macnaha generation ugu cusbaa ama dhalashadii ugu cusbaad ay soo saaraan seed improvement wax la yiraahdo ama seed genetics wax la yiraahdo laga qaado waxa jira gene ahaan seedka loo baaro lab iyo technical iyo qalabaan u fududeynaa sidaas daraadeed marka annaga ma haysano Soomaali ahaan maanta ma haysano laakiin waxaan sameynaa seedad ama wadamo kale inta ka soo iibsan aan beeranaa taasna marka ma lahan quality ama tayo ugu sareyso oo maanta wax soo saarka kor u qaadayo hadii marka tusaale isbarbar dhigo seed quality leh iyo seed quality soo seey isbarbar dhig yar aan ku sameeyo keeba fiican maxaa lagu darbidaa kan fiican aan dib dhigto kan xun aan soo hormariyo kan xun hadii aan soo hormariyo sida hadda wadamada qaar ama annaga kale aan ka soo qaadan lahayn waxay soo gadanayaan seedad oo quality-gooda hooseeyo wuxuu seedku wuxuu markii la beero wax dhalidiisa waxa laga yaabaa soo dhalitaankiisa ama biqladiisa ama germination sida lagu dhaho inay aad u hooseyso laba waxa imaanayso in uu cayaankii cuduradii waxyaabihii wadankii cimiladii u dul qaaday waayo sidaas daraadeed wax daciif oo soo saaro oo wax walba ay u nuglaado sidaas waa midka tayadiisa hooseyso aan aadna midka tayadiisa sareeyo midka tayadiisa sareeyo waxa waaye soo biqlataankiisa boqolkiiba 90 ama boqolkiiba 95 98 boqolkiiba 100 iska dhaliyo ka ugu fiican oo soo dhalanaya boqolkiiba 99 mar hadaa abuurtid oo soo wada baxayn kale halkayna qayb kamid ay maqnaanaysa marka intaas laga gudbo waxa ku soo xigto in hadana markii uu soo dhasho oo iska difaaco waxyaabihii soo weeraraya cayaankii diseasekii fangihii wax la xiriiro dhan iska difaaco oo resistance wax la yiraahdo adkeysin u leeyahay waxa ku saddexeynaa inuu korriimihiisa degdegayso waxa ku afaray kara ama heer kale u soo gudbi kara inuu geed quality noqdo karo kadibna uu soo saaro wax tayo leh oo intii laga rabay hatta hadii laga soo rabo soo saari waayo in dhow ayuu keenaya taas oo dhow markii dib loo baaro maxaa keenay in intaana laga rabay intaan keeni waayo markii baaritaan lagu sameeyo waxa laga yaabaa markaas ama nafaqooyinkii ama cimiladii waxyaabaas inay sababaan taasna intaas uga baxo annaga markaan traditional ahaan marka hada wax dib u laabto waxaan naqaanaa wixii aan beeranay noo soo baxay inaan kala harno kuwa ayaga kamid ah oo seedad kamid inta aan ka miirno waliba sida aniga hadda soo gaar dhaqanka waxa la sameeyaa beerta inta la dhaxmar dadku waayelka inta dhaxmara waliba hadda meelaha qaar ay ka jiraan inta la sameeyo inta la dhax galo mid kale siiraado mid kana ugu qurxan tan la miiro agoon la dhigtaa marka dhahayd maxaad alaabtan goonida ugu bixiday ay taa kan kale ugu diray wuxuu ku leeyahay waxaan ka rabaa seed oo ah inaan fasalka soo socdo ama sanadka soo socdo aan beerto walow ay ku kala duwan yihiin qaabka loo kala storage gareysanayo storage marka la yiraahdana waa hawl kale laakiin waxaan dareemaynaa seedka quality-ga leh ee tayada leh
wadamada qaar hadda waxay ugu talagaleen inay hal mar ay beertaan mar labaad aan la beerin walow anaga isticmaalno mar 2 3 4 boqol jeer in la isticmaalo abka aan soo gaarno maanta aan wali isticmaalin halka ayaga ay isticmaalayaan sanad ka hor ama 2 sano ka hor ama 2 season oo shayga la beero mid kale ka cusub in la sameeyo la abuuro la diyaariyo laga shaqeeyo warshadihii mashiinkii oo kamid ah laabkii la geeyo la hagaajiyo intaas waa mid quality midka marka dhaqanka ay dadku waxay sameeyaan intay soocaan ay meel dhigaan ay marka dambe hadana beeraan ay dib u beeraan oo dib hadana u dhalaa alxamdulillah anaga waan nimcaysanay anaga waan waxaas dhan haysan hadana wax noo baahan walow laakiin aan hooseyn waxa keenaya marka malihin horumarka dhankaas ka jiro haddii aan u laxdo dhanka food security ahaan oo kula yani seedka qayb kamid ah wax la yiraahdo quality control jiro ah wadanka wax soo galay hadda marka la hadlayo waxaan ka hadlaynaa seedka wax walbana quality control la sameeyo seedka bas ma aha wax walba wadanka soo galay xuduudaha dekadaha airportada meel kasta oo wadanka oo la isdhihi karo waxba ka soo gali karo in la sameeyo quality control wax la yiraahdo oo la ogaado waa la gaari doonaa iyadana wadanka waxa waaye waxa uu ku jiro kamid tahay oo gaabka ah waan laga bixi doonaa rajo walbana markeedii fulintaa marka saasaan rajaynayaa markasta oo seed quality la aad heshana waa markasta oo aad horumarka ama wax soo saarka u dhowdahay waxaan u maleynaa haddii la yiraahdo waa la falaqeynaa ama waa laga hadlaa waa waqti aad u tiro badan ay qaadanaysaa laakiin intaas yaroo kooban aanan micnaha buuxda ila lahayn aniga ahaan aan isleeyahay wax unbaad wili kaa dhiman intaasaan bulshada la soo wadaagayaa waa mahadsantihiin wixii aad isleedihiin meeshaashaa weli wax ka jirtaa waxaan jeclaan lahaa inaad nagula soo wadaagtaan sida saaxiibadayga ayagana ay ka shaqeeyaan barnaamijkan oo ay sii wadaan aysan meeshan ku ekaynin ay yani bulshada wixii usoo gudbiyaan baahiyaha ka jiro ay ka jawaabaan oo hadba dadkii cilmiga u lahaa ama u dhow xataa relatedka leeyahay wax ay ka weydiiyaan qof kasta oo hal talo ku siiyo waxaa fiican in laga qaato oo la yiraahdo alla leh waa kelmad maanta uu dhaqan gali karto fiican dadka waa soo dhaweynaa adinkana waa mahadsantihiin barnaamijkaas yaraan maanta idin la soo wadaagay beeraha TV ku soo dhawaada bulshada waxa leeyahay waxa waaye beeraha TV hala socdo laga warqabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما ستين والسلام عليكم